Salaamu Allaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada janagalayaal. Halkani waa Iled Wave Adjust Channel. Anigu waa Faarax Cusmaan. Saa la socotaan waxaan dhexda kaga jirnay cashiradeenii taxanaha ahaa ee Iled Wave Theory. Cashirka ka horreeya waxaan ku soo qaadanay nooca nasiinada falaadka. Cashirkan hadduu alle idmo waxaan ku dul istaagi doonaa nooca nasiinada triangle-ka. Anagoo baran doono waa maxay nooca nasiinada triangle-ka, tilmaamaha lagu aqoonsado nooca nasiinada triangle-ka, qaab dhismeedka nooca nasiinada triangle-ka, iyo noocyada kala duwan ee nooca nasiinada triangle-ka. Sidoo kale waxaan isla aadi doonaa suuqa anagoo ka soo saari doono tusaale nooca nasiinada triangle-ka. Ugu horreyn haddaan cashirkeena gudaha u galno, nasiinada triangle-ka waa nooc ka mid ah nasiinooyinka suuqa ka dhacaan. Nasiinada triangle-ka is a sidewave movement correction taasoo xiriir leh hoos u dhac ku yimaado volume-ka iyo volatility. Nasiinada triangle-ka waxay leedahay 5 dhinac. Dhinac kasta oo 5taas dhinac ka midna waxay ku yimaadaan qaab min 3 mawjadood ah. Halka ay taas ka dhigayso in nasiinada triangle-ka ay la timaado qaab dhismeed 3-3-3-3-3 taasoo ka dhigayso in nasiinada triangle-ka ay la timaado qaab dhismeed 3-3-3-3. Nasiinada triangle-ka waxaa loo qaybiyaa 4 nooc, kuwaasoo kale ah ascending triangle, descending triangle, contracting triangle, iyo expanding triangle. Haddaan isla eegno noocyadan kala duwan ee nasiinada triangle-ka iyo qaabka ay ku imaadaan, kow ascending triangle wuxuu ku yimaadaa noocan oo kale ah, halka descending triangle isna uu ku yimaado noocan oo kale ah. Symmetrical triangle ama contracting triangle isna wuxuu ku yimaadaa noocan oo kale ah, halka expanding triangle isna uu ku yimaado noocan oo kale ah. Bal haddaan isla eegno tilmaamaha lagu aqoonsado nooca nasiinada triangle-ka waxaa ka mid ah, ugu horreyn is a corrective structure labeled as A, B, C, D, E. Usually happens in wave B, the corrective move, and wave 4 of the motive wave. Waa nooc nasiino taasoo lagu suntiyo A, B, C, D, E. Waa nooc nasiino taasoo lagu suntiyo A, B, C, D, E. Ugu badnaan waxay ka dhacdaa mawjadda B-da ee corrective move-ka iyo mawjadda 4aad ee motive wave-ka. Sidoo kale tilmaamaha lagu aqoonsado nooca nasiinada triangle-ka waxaa qayb ka ah subdivided into 3, taasoo micnaheeda ay tahay mawjad kasta oo ka mid ah mawjadaha nooca nasiinada triangle-ka waxay ku yimaadaan qaab min 3 mawjadood ah. Sida halkan sawirkan kaga muuqata, mawjadda A-da waxay ku yimaadeen qaab min 3 mawjadood ah, halka mawjadda B-da ay ku yimaadeen qaab 3 mawjadood ah. Mawjadda C-da, D-da iyo E-dana dhammaan waxay ku yimaadeen qaab min 3 mawjadood ah, taasoo ka dhigayso in nasiinada triangle-ka ay la timaado qaab dhismeed 3-3-3-3, taasoo ka dhigayso in nasiinada triangle-ka ay la timaado qaab dhismeed ka kooban min 3. Sidoo kale tilmaamaha lagu aqoonsado nooca nasiinada triangle-ka waxaa qayb ka ah RSI also needs to support the triangle in every time frame, taasoo micnaheeda ay tahay muujiyaha ama indicator-ka waxaa laga doonayaa in uu ku waafaqo nooca nasiinada triangle-ka time frame kasta. Sidoo kale tilmaamaha lagu aqoonsado nooca nasiinada triangle-ka waxaa qayb ka ah subdivisions of wave A, B, C, D, E can be either ABC, WXY or flat. Mawjadaha kale ah A, B, C, D, E dhammaantood waxay ku imaadi karaan nasiinooyin kale ah zigzagga, falaadka iyo double tree. Halkaas waxaan kusoo gabagabeynay
cashirkeena qaybtiisa koowaad oo ahayd waa maxay nooca nasiina triangle-ka, tilmaamaha lagu aqoonsado nooca nasiina triangle-ka, noocyada kala duwan ee nooca nasiina triangle-ka iyo qaab dhismeedka nooca nasiina triangle-ka. Waxaan gudagali doonaa inaan u gudubno cashirkeena qaybtiisa labaad oo aan suuqi isla aagno anagoo ka soo saari doona tusaale nooca nasiinada triangle-ka. Haddaan u gudubno cashirkeena qaybtiisa labaad ee ahayd in aan suuqi ka raadino tusaale nooca nasiinada aan maanta qaadanay ee triangle-ka. Ugu horreyn copperka daily time frame copperka. Halkan waxaa nooga muuqata nooca nasiinada maanta ee triangle-ka taasoo ka kooban 5 dhaqaaq. 5taas dhaqaaq oo dhaqaaq kasta oo 5taas dhaqaaq ka mid ahna uu 3 dhaqaaq kasii kooban yahay. Sida cashirkeen maanta aan ku baranay in lagu suntiyo A, B, C, D, E. Halkaas waxaan ku haysanaa tusaalihii koowaad. Bal haddaan isla eegno isla lacagtan iyada ah tusaale labaad nooca nasiinada maanta aan qaadanay. Halkan saa ka arkaysaan suuq wuxuu suubiyey nasiinadii maanta aan qaadanay ee triangle-ka taasoo ka kooban 5 dhinac ama 5 dhaqaaq. Sida cashirkeen maanta aan kusoo baranay lagu suntiyo ABCDE. Halkaas waxaan ku haysanaa tusaalihii labaad ee nooca nasiinada maanta aan baranay triangle-ka. Bal haddaan isla raadino lacagta Euro JPY 1 hour time frame isla nooc nasiino oo maanta aan qaadanay. Saa halkan ka arkaysaan lacagtan waxay soo bixisay rally waa ka dhaqaaqday halkan. Dhaqaaqan kadib suuq wuu soo nastay. Nasiinadaas waxay noqotay marka nooca nasiinada aan maanta qaadanay ee triangle-ka taasoo ka kooban 5 dhinac. Lagu suntiyo sida cashirkeen maanta aan ku baranay ABCDE. Lagu suntiyo sida aan maanta cashirkeena ku baranay ABCDE. Lagu suntiyo sida aan maanta cashirkeena ku baranay ABCDE. Halkaas waxaan ku haysanaa tusaale kale iyo tusaalihii saddexaad ee nooca nasiinada triangle-ka. Bal haddaan isla eegno lacagta Euro USD weekly time frame isla nooc nasiinada maanta aan baranay ee halkaas ka muuqdo. Isla nooc nasiinada aan maanta qaadanay baa halkaas ka muuqdo. Saa halkan ka arkaysaan lacagtan waxay suubisay nasiinadan bay suubisay. Nasiinadan oo ka kooban 5 dhinac taasoo lagu suntiyo saa cashirkeen maanta ku baranay ABCDE. Taasoo lagu suntiyo saa cashirkeen maanta ku baranay ABCDE. Taasoo lagu suntiyo saa cashirkeen maanta ku baranay ABCDE. Kadib suuqii soo dhaqaaqay oo seel buu soo aaday. Haddaan isla eegno nooca nasiinada ee triangle-ka isla lacagtan USD JPY daily time frame. Lacagta USD JPY dollar yen daily time frame. Halkan waxaa iiga muuqata qaab dhismeed u eg nooca nasiinada maanta aan qaadanay taasoo ka kooban 5 dhinac. Lagu suntiyo saa maanta cashirkeena ku qaadanay ABCDE. Lagu suntiyo ABCDE. Lagu suntiyo ABCDE. Halkaas waxaan ku haysanaa another tusaalihii 5aad ee nasiinada triangle-ka. Halkaas marka waxaan kusoo gabagabeynaynaa cashirkeena labada qaybood ka koobnaa. Qaybta koowaad aan ku falanqeynay waa maxay nasiinada triangle-ka, noocyada kala duwan ee nasiinada triangle-ka, tilmaamaha lagu aqoonsado nasiinada triangle-ka, iyo qaybta labaad oo suuqa ka soo saaraynay tusaalooyin 1 iyo 2 iyo 3 ee nasiinada triangle-ka. Intaan cashirkiisa kale ku kulmi doono waa aniga iyo bahda Elite Wave Adjust oo idin leh nabadgelyo.